assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi laga bilaabo Zaporizhia, St. Petersburg iyo Moscow. Dowladda Ruushku waxay ku khasabtay dadka Yukraaniyiinta iyo Ruushkaaba inay u hoggaansamaan awaamiirta ka imanaya dowladda. Gebi ahaanba dadyow badan oo Ruush oo mudaharaadayay ayay dowladdu amartay in xabsiyada laga buuxiyo. Cid kastoo ka hor timaada go'aanka dowladda Ruushku ay ku qaadatay inay ciidamadeeda ugu dirto gudaha dalka Ukraine waxaa loo aqoonsaday inuu yahay dabadhilif reer galbeed. Xilligan dowladda Ruushku waa mid ku mashquulsan aftida ka socota afarta gobol ee Ukraine oo ay doonayso dowladdaas inay la wareegto. Warbaahinta reer galbeedkuna waxay soo bandhigayeen muuqaallo dadyow lagu khasbayo inay bas si khasaba ku fuulaan loona qaadayo goobaha codbixinta. Sidoo kale dadyow Ukrainiyiin oo horeba iyagu ugu qaxay gudaha dalka Ruushka ayaa ku codeynayay gudaha dalka. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay natiijo walba oo ka soo baxda aftida inaanay aqoonsan doonin. Sidoo kale dowladaha iyagu isugu yeeray inay yihiin beesha caalamka ayaa sheegay inay ka hor imanayaan. Weli waxaa jira dadyow Ruush oo iskaba ilowsan in dalkooda ay isugu tageen in ka badan 100 dowladood. Dowladooduna ay uga baahan tahay iyaga hiil buuxa, waxayna qaarkood ku mashquulsan yihiin mudaharaado iyo waxyaabaha ay dowladooda kaga hor imanayaan inay sameeyaan. Dowladda Ruushkuna waa mid dadkeeda ku dhiirigelinaysa inay u midoobaan cadowga guud ee ku soo duulay siyaasadda arrimaha dibadda dowladoodu ay ka leedahay adduunkan. Madaxweyne Vladimir Putin waxa uu sheegay dadyowga noocaas ah inaan la oran karin inay yihiin kuwa Ruush ah amaba uu ku jiro wax yar oo dhiig Ruush ah. oo dowladdiisa gebi ahaanba ku amray in xabsiyada laga buuxiyo. Sidoo kale dowladda Ruushku waxay sheegaysaa weli si habsami inay u socdaan aftiyihii afarta gobol ee dalka Ukraine ku yaala laga qaadayay. Dhowaantanna dowladdaas waxay sheegtay inay ciidamo dheeraad ah halkaa geyn doonto si loo ilaaliyo ammaanka gobollada cusub ee dowladda Ruushka ku soo biiray.